بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا ورئيسنا أبوان نجية علي قليف. وحنا ورئيسنا أرمى السياسة إيو الصحافة الحريرة. أبوان نجية كسروا إذا عاد الإسلام قال الفرقان مركلة إنك سو يشتري حل هران ورئيس كاغا. أي أدب ما سنت عبد الله وأدوه هذا ما سنتين. أدينا ونقوم هذا علينا سيد موضوع قلاتي ورئيسك. سوماليا وحكي جرت صحافة مقال إيو مقال بله إيو مدعو عن انتبه أدونا معلن صحافة أياد أهيد كورنا صحافة الصومالية ما أنت جرت إيو قابك أيو شخص عبد الله وصحافته مركا أي فهم سنتهاي مسؤولية ده مركا أي فهم سنتهاي شقة أي لا هاي شقة باريس هانيد شقة يسود اللي تركا ورارك يحوجها شقة دبقلك صحافته سجود مركا أي شقة أي لا هاي أي فهم سنتهاي ودور وين وحي كقاعدة تاهر مركب بالشويك أي رنتي أي كل هذا وين حقيقوين كي صوب بندكتا وحي دبقة شواح لده political elite أنت بدن محوي هجانك السياسي جاهوي فكاس حافظ وحي أبو طوح لده إصلاح حسابته كسوح ويان دتك هجانك تشوجا وحي أي قلده إن توش كاللجو يفكروا برشة اللجو برارو تشكروا وحي صوب بندكتا خلادات كدتك مدح ذا هجانك أكدع أي صوب بندكتا markaas saxaafadu marka ay fahamka ballaaran haysato maxaa la yiraahdaa in ay isu dhigto inay tahay isha isku xidha maamulka meesha ka jira iyo dadka la maamulaha markay isu fahamsantahay door weyn bay ay runtii leedahay ta Soomaalida walaal hadaan soo laabto si gud waagi hore waxa jira wax la yiraahdo traditional media ama warbaahintii taqliidiga ahayd jaraa'idada ka soo bilaabatay magazineska lahayd filimada lahayd markii dambe raadiyowga lahayd Soomaalidu marka waxay ahayd si gud adiguna runtii aad baad xogaal ugu tahay إذا عدى وحي هانجرتي ورباهنتي ugu weyn ay Soomaalidu leeyihiin oo dadku dhageystaan ay dhageystaan waxyaabo badan baa laga yaabaa inay keenaan waxyaabaha in idaacadu caan noqoto Soomaalida dhexdeeda lagu sababayo waxa kamid ah Soomaalidu akhriska iyo qoraalku uu ku yaraa oo Soomaalida akhriskeeda iyo qoraalkeedu farteeda marka la qorayna waa bay iska dambeysay ilaa maanta in wada hadlaynayna Soomaalida si guud akhriska iyo qoraalku uu ku yaryahay dadka wax akhriya iyo dadka wax qora tirahan waa yaryihiin sidoo kalena dadka wax qora waxay yiraahdaan Soomaalidu intay wax akhriyaan waa oral society ereygaas runtii inoo baxay maartay dunida dhexdeeda oo bulshada hadasho oo maartay oratory leh weeyay yiraahdaan arrimahaas oo la isu geeyay ayaa waxay keeneen inay idaacadu noqoto tan ugu weyn ee Soomaalida public opinion-keeda ama raayul caamkeeda jahaysa isbedel warbaahineed baa dhacayo waxa loo bixiyay hada warbaahinta baraha bulshada ama social media ama citizen journalism ayaa soo baxay بريجو هريدا عادها أما TV دا أما جرائد دا وحيل هاي وحلا editorial policy وحويان قف الريبورتر كأما وريها هي إنه وركانه قف تفافتراها وكأجا وحي وكاري مسوجينهين أنشحهان سديهين الورادية دا اللي جسوا حكتي سديهين إيه وحصل الله فيري ولا كنترول citizen journalism كي وحو كاني وحيل هذا هو democratization of news وحيلين وورك إلا الديمقراطية دي معناه هذا وحوي ورك إلا الديمقراطية دي وحلوجت كذا وحوي وركي وإذا عدى عنونا أموريها أدونا تففتراها هيد هبلة ودقيستها هاي process كاسمرعي process كائن لبربرية وي قف كستاميش وتشوجا أيو وريه كويه قف كستاميش وتشوجا أيو لدقيست كويه قف كستاميش وتشوجا أيو دقيست كويه وحورية اللي هذا متشرو وحلا دقيست اللي هذا متشرو وح دقيست اللي هذا متشرو citizen journalism كمعناه وحويان قف واللي بحطوا سمارت فون هايستو وورمي كرا إسقال لدقيست كرا تلفون هدوها مقالي إنترنت coverage وليه إسقال لدقيست كرا taasi marka maxay meesha ka saartay waxa la yaalo inta badan aan idhaahdo wixii ethics ka saxaafada la oran jiray shuruucda saxaafada iyo anshaxi law and ethics waa sharcigi iyo saxaafada iyo anshaxi saxaafada labadiiba way burburisay sababtu waxa weeyaan dadka hadda warbaahinta soo galay citizen journalism-ku uu keenay waxa weeyaan waa qof aan lahayn xirfadii loo baahnaa tababarkii loo baahnaa ee saxaafadeeda aan lahayn weey kuwaas marka maanta dadka u warraba kuwaasa malaayiin ay ku xiran yihiin macnaha dadka isticmaalaha damaanta social media Instagram isticmaalay Twitter isticmaalay Facebook isticmaalay maxaa la yiraahdaa de waad yaabaysaa macnaha statistics kala sheegaya inta tira leegtay kuwaasa marka maanta raayul caamka bulshooyinka haga Soomaaliduna kuwaas ay kamid tahay marka raayul caamka Soomaalida maanta waxa haga
dad aan lahayn xirfad warbaahineed laba xirfadda warbaahineeda aqoonta haddaanay lahayn dadkii hore idaacadaha ka shaqayn jiray ee adigu maaragtay soo gaadhay laga yaabaa si fiican wada garanaysaa khibrad warbaahineed oo muddo dheer bay lahaayeen khibradda warbaahineed waa aragnimadaas waxay siisay inay wax kala sooci karaan ay ugu xubsan karaan verification samayn karaan neutrality-ga ilaalin karaan maaragtay ay waxaas ka shaqayn karaan dadkan yaryar markaa hadda maanta warbaahinta ka shaqaynaya skillkiina ma laha oo tababarkii saxaafadeeda loo baahnaa ee maaragtay educationka may soo qaado formal educationka may soo qaado waxbarashadii tooska ahayd waayo aragnimo ku filan oo ay saxaafad muddo ku soo jireenoo ay soo practice gareeyeenna ma laha sidaasay markaa warbaahinta soomaalida maanta kuwaasaa raayul caamka hagaaya waxaa citizen journalismka loo bixiyey baanay soomaalidu maanta dhallinyaradeedii iyo warbaahinteeda ay qayb ka tahay waxa la yaala wuxuu caqabad citizen journalismka uu leeyahayna saaxadda soomaaliya maanta waa taalla waaya waad mahadsan tahay marka waxaad leedahay anshaxii ee saxaafadda waxa loogu yeero ama loo bixiyey lama dhowro oo waa la burburi ereyga waa la burburiyey ma isticmaali kara laakiin runtii dhaawac badan baa loo geystay waxa dhaawac u geysanayana waxa weeyaan hanaankii loo mari jiray in war la sameeyo waxa jira waxa la yidhaha elements of news wixii maxaa la yidhaahdaa way dhaawacmayaan sababta waxa weeyaan adigii baa wariyaa adigii baa kamaramaana adigii baa editora adigii baa warbaahiya adigii baa dhegaystaa wuxuu dhan adigaa isu ah adiguna isma inta badan self censorship qofku inuu sameeyo way adagtay qofkii wuxuu isagu soo gudbiyey inuu qaladkooda iyo saxooda kala arki karo inta badan way adkaataa wuxuu u baahan yahay cid kale oo ka waaya aragnimo badan oo editing ku samaysa wixiisii oo ka hubisa oo wixii qalada ama anshax ahaan qalada ama waaqici ahaan qalada marka qaarkood runa aan la sheeginaa jira do not harm wax la yidhaha xeerka saxaafadda ka mid ah uga sii darin weeye af soomaali xaqiiqa aad og tahay haddaad og tahay xaqiiqada intaad soo bandhigtay inay wixii wax ka badan keenayso dhibaato ka badan ay soo bandhigayso waxa la dhaha uga sii darin marka ha uga darina ka jooji wey ha uga darina ka jooji waxaasoo dhan hadda cidi ma taqaano marka qodobada ugu waaweyn ee aad oran karto waa lagu tuntay ee anshaxa saxaafadda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah kow xeerka ugu weyn ee saxaafadda isticmaasho waxa la yidhahdo trust wey waa kalsooni in warbaahinta kalsooni lagu qabi karo qofka wariyahay markuu war sheego warkaa uu sheegay waa in qofka muwaadinka ee shacabka ee baadiyaha jooga ee dhagaysanaya warkaa uu sheegay waa inuu ku go'aan qaadan karo haddii maanta aad ii waranto oo warkii aad ii sheegtay aan aamini waayo credibility uu dhaawacmo macnaha mistaaqiyadii aan kugu qabay ay dhaawacanto wax saxaafadaha kugu hadhay ma jiro marka waxaan isleeyahay saxaafadda soomaaliya maanta waxyaabaha dhaawacmay ee caqabada weyn runtii ah waxaa ka mid ah in kalsoonidii lagu qabay in war laga qaataa runtii ay aad iyo aad u dhaawacantay in warbaahinta soomaaliya weliba kuwa citizen journalismka iyo kuwa kale taqliidiga waxaa kasii nooliba caqabadaha wixii doonaaba sababo kale ha ahaadaan oo fara badan oo jiri kara laakiin waxaa luntay oo natiijadaynu maanta haynaa waxa weeyaan in warbaahintii soomaalidu inta ugu badan le uu dhaawac weyne kalsoonidii lagu qabay uu soo gaaray waayahay nagay waxaad arkaysaa idaacad dhan oo maaragtay weyn oo dad boqolaale ay ka shaqeeyaan oo caan ah amaba idaacado badan oo ama telefishin ha aadan ama raadi ha aadan oo sheegaya magaalo aan la qabsan in inta lagu duulo la qabsaday dad lagu laayay wax dagaal oo ka dhacana ma jiraan maaragtay cid dib kala hadlaysana ama warkaa maaragtay ku qabsanaysana lama arkayo maxaa u sababay in aan wixii dhacay la isaga daba imaanayn oo maaragtay isheegeen anshaxii ama xeerkii saxaafaddaba sidaad sheegaysa ee ka baxsan walaal way jirtaa runtii horta soomaaliya mushkilaadka warbaahinta haysta waxaa ka mid ah waxa afka ingiriisiga loo yidhahda media ownershipku waxa weeye cidda warbaahinta leh iyo cidda siyaasadda ku jirta hadday mid keliya isla noqdaan runtii caqabad weyn baa ka dhalata haddii ninka siyaasiga ah ee political elite-ka ee xisbiga hogaaminaya ama doorashada uu ordaya ama electionka raadinaya ama isaguba kursiga fadhiya uu noqdo ka isagu leh xarunta warbaahineed idaacadda leh tv-ga leh jaraa'idka leh hadduu noqdo ama gacansaar ay leedahay ama de ganacsatadaba dhe nin ganacsadayo multimillionaire haddii uu noqdo haddana ka isagu warbaahintii leh warbaahinta check-in ma samayn karto dawaduu soo dejinayo ma hubin karto maxaa la yidhaahdaa cuntada dhacday dalka keenaya ma hubin karto maxaa la yidhaahdaa caqabada kale amni ama dhaqaale ama siyaasadeedu dalka ku haya ma hubin oo wixba isagaa iskale siyaasaduna waa la mid ninka political elite-ka hadduu isagu idaacaddi leeyahay maalintuu isagu kursiga fadhiyana siduu isagu jecel yahay bay u hadlaysaa dowladdu shaqo wanaagsan bay qabato si wanaagsan baa loo shaqeeyo hanaanku isku aadisan yahay maalintuu isagu kursiga waayana wax waliba haadaan bay kasii dhacayaan
saasay tabinaysaa marka sawirka guud haddaad aragta idaacad propagandadeedu badan tahay maxaa la yidhaahdaa safka dagaalka ku jirta haddii aad aragto waxyaabaha safka dagaalka soo gelaya waxaa ka mid a ninkii isagu iska lahaabaa safka dagaalka ku jira waxyaabaha takhasuskaada waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda macalina waad ku aheed waad ku shaqaysa arrimaha siyaasadda soomaaliyana waad u dhundalooshaa siyaasiyiinta soomaalida ama hoggaanka siyaasaddu gebigood ma daba dhilfiyaa mise wax unbaad ka soo reebi lahayd waa wada daba dhilif kolley anigu horta qof ahaan ma odhan karo laakiin hal xaqiiqaa jirto runtii ay tahay inaan aada u fahmo nin la odhan jiray abwaan haa uu dhintay allah u naxariista guhad cabdigaxiir 1960kii markii soomaalida koonfureed iyo soomaalida waqooyi ay xorriyadda qaadanayeen weliba ta waqooyi iyo June 16 markii ingiriiska habeenkii ay ka xoroobaysay ayuu hargeysa gabay ka tiriyey markaa dadkoo dhan way jibaysnaayeen dadkoo dhan xorriyad calan saar dee timcadda waa la xusuustaa maaragtay geeraarkiisii caanka ahaayee maxaa la aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar marka timcadda saas ayuu u arkayo inay dowladnimo dhalatay oo maxaa la yidhahdaa ingiriis laga hoos baxay oo la barwaaqoobi doono isaga imaginationkaas khayaalkaasuu qabay guhad cabdigaxiir gabay buu tiri lila goodii abees bay isbedelay garana maysaan goodii abees ayaa isbedelay garana maysaan gocondhooyin baa aasan iyo mici gabaarey karalkaama guurin halkan uu guud madow yahay buu meeshaan u socday political philosophy-ga weyn ee runtii ninkaas uu fahamsanaa uu ku jiraa waxa weeyaan ninkii ingiriiska ahaa ee hargeysa xukumayay ee tegey iyo ninkii soomaaliga ahaa ee markuu ingiriiska tegey uu hargeysa kaga tegey magaca way ku kala duwanayeen waa sax midabkana waa ku kala duwanayeen waa sax waxaasoo dhan waa ku kala laakiin hal waxbaanay ku kala duwanayn oo markii dambe waaqicu inoo sheegay inaanay ku kala duwanayn 6 iyo maxaa la yidhaha 4 iyo 60 sannadood kadib waaqicu inoo sheegay inaanay kala duwanayn hal wax weeye political agenda ay gudbinayaan waxay xambaarsan yihiin waxay doonayaan inay xaqiijiyaan nooca dawladnimo ay rabaan inay hirgeliyaan ayaa labadii nin isku mid noqotay ninka Soomaaliga siyaasiga markaa su'aashiis waxa weey ninka Soomaaliga ee siyaasiga ee xukunka haya muxuu rabaa inuu xaqiijiyo wax diinteena la digo wax dawladnimo aan inuu horseedo inuu 6 iyo 4 iyo intaasoo 60 sannadood aynaan natiijo fiican laga gaarin maxaa la yidhahdaa lagu burburay la isku nacay dagaalo qabiil ka dhaceen maxaa la yidhahdaa dagaalo sokeeyo oo umula dooxi ka dhaceen reer la isu dilay markii dambe dalkii gobol loo qaybsaday markii dambe building blocks iyo federalism iyo waxaad arkaysaa ay ka dhasheen haluma jiro marka ninka siyaasiga ee Soomaaliga ah maanta mashruucaas uu rabaa inuu riixo ninka markaa mashruuca riixaya anigu magac u bixin maayo laakiin magacii hore loogu bixiyo Soomaalida waa yaqaanaan magaciisa saas daraadeed waxa muhiimka ah waxa weeye magaca ma hebel ma waxa weeyaan waxa uu hebel riixayo raba inuu hirgeliya maxay yihiin I think taasa ayaa runtii muhiim marka hebel hadduu doonayo inuu hirgeliyo waxaan ingiriiska iyo sheek la hirgelinay ay hirgelinayeen magaciisa waa taqaana markaas in magaciisa la isweydiima waxa jira runtii book runtii cajiib oo la yiraahdo Merchants of Misery macnaheedu yahay waxa weeyaan silic ku naaxayaal dadka silica ka ganacsada ama silica ku naaxay weey haddii Professor Abdi Ismail Samatar ayaa qoray marka The Merchants of Misery haddii siyaasigii Soomaaliga ha maanta lagu magacaabay ama lagu tilmaamay inuu yahay qof silica ummadda ku naaxa oo markay ummaddu barakacday isagoo guri dhista oo marka laba qabiil isku rogmadaan isagoo kursi hela oo marka laba beelood istilaan isagoo wax gaara oo marka maartay dad qof dhinto isagoo natiijo xaqiijinayo iyo marka la qaxay isagoo natiijo xaqiijinayo waxaan maraynayaa kaas maartay The Merchants of Misery waa good example macna sheegaya siyaasiga Soomaaliga waa tusaale wanaagsan oo sheegaya maartay sida siyaasiga Soomaaliga maartay uu maanta weegay ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan bay soo martay wilna lugaha ku jirtaa dhankee laga hayaa muxuu yahay cudurka haya dadka Soomaaliyeed maxaad silsilada dawadiisu ay noqon kartaa inagoo diin isku mid ah oo midab isku mid ah oo geographically dhulkeenu isku mid yahay oo af isku mid ah ku hadlayn oo dhulkeena lagu sheegay inuu yahay very strategic dhul runtii aad maaragtay muhiimad juqraafiyadeed leh oo petrol leh oo gas petroleum maxaa la yiraahdaa kala duwan leh oo natural gases leh oo webiye leh oo maxaa la yiraahdaa webiyada wax laga beeran karo oo xoolo badan macna inaga oo dhaqaale intaas la heli karno
oo laba badood oo runtii far istaraatiijiga ay dhulkeena ku yaalaan oo laga yaabo shipmentska ama cargo-ga adduunka u kala gooshay 30% wax ku dhow in xeebaha Soomaaliya ay isticmaalayaan oo tiradeenu marka loo eego aan dad yar ahayn in haddana la yiraahdo ceebtii Afrikaati waxba inaga qaldan waxa inaga qaldan muxuu yahay waxaan maleynayaa waa muhiim hal waxa marka ay u baahan tahay inaan fahmo waxa weeyaan niyo hadduu qofku xanuunsado oo kadibna diagnosis kala duwan loo qoro diagnosis waa daw hadduu intuu qofku dhakhtar u tago madaxa ku xanuun kaniin madax la siiyo oo dadna markuu 10 maalmood cuno uu dhakhtar kale u tago kulmay wadnaha laga hayayo kaniin wadnaha u qoro oo waxba ku bogsan waay markuu muddo dawooyinka kala duwan qofka loo wado dawada lafteeda cudur ku noqoto waa meeshii Soomaalidu la jirtay nin bugta 100 baa ayaa u talisa Soomaalida marka diagnosis kala duwan waxyaabo kala duwan dawooyin kala duwan baa loo qoray oo aan ahayn xanuunka haya dawadii lafteeda marka Soomaalidu hadda ku xanuunsatay dawadii loo qoray lafteeda ayaa hadda aan mushkilada ugu weyn ee Soomaalida haysato maxay tahay dawada waxa weeye one of the things inaynu horta isla fahmno root causeska mushkilada ugu weyn ee haysata maxay tahay inaynu isla fahmno intaan wada fadhiiso ma faragelin shisheeya ma dhaqaale xumaa ma silic baynu isku dilayna oo maxaa la yiraahdaa gaaja isku keengeynaysa maxaa la yiraahdaa ma competition of resources ba ma khayraadka inagu yaro marka tartan khayraad baynu ku jirnaa wax baynu kala boobayna ma qabyaalad ba maxana waxaynu isku dilayna ma nidaamka hadda maartay ma faham daraa in haysa ma nolosha gabigeeda inaan fahamsan ma ugaar baynu ma dad cawaana baan nahay maartay ma dhaqankeena violent culture ma dad maamaadi ahayd ninaan sharci ninaan shantaadu ka reebin sharci macnaha ma dad iska fawdaayo raba ha socoto oo hal yaacamiyeen nahay oo anarchism-ka u dhashay waxay u baahan tahay in su'aalahaas ay soo dirto xageena xanuunaysa oo isku daalay maxaa inoo dana nimaya in su'aashaas ay timaado in marka isku daalay maxaa inoo dana ay ka soo baxda diagnosis-keena warniyo maxaa inaga qaldan in marka su'aashaas laga jawaabo markas waxa jirta qola research sameysay dad Soomaaliyo cilmi baaris sameey Soomaali kala duwan baa waxay weydiiyeen oo deegaamo kala duwan joogo oo qaar baadiye jooga waxay weydiinayaan cudurka Soomaalida haya muxuu yahay dadkii badankoodu waxay ku jawaabaan taqaanaa waana la marginalize gareey xaqayga baa la qaatay haye maxaad xal u aragtaa xaqayga aan helo waa ummadan oo qof walba xaq ka maqan sidii aaminsan qofkana la leeyahay xaq maxaa mushkilada ku haysta waxa xaqayga baa maqan maxaad xal u aragtaa waxaan xal u arkaa inaan xaqayga helo wadeegama kala duwan baa ayaa cilmi baaris noocaas su'aalo noocaas dad la weydiiyay reconciliation iyo qolad waxaas ka shaqeynaysa maxaan ka wadaa waxa weeye qof kasto inaga mid wuxuu aaminsan walaal inuu dulmay yahay qof kasto inaga midna wuxuu aaminsan in la dulmay haye yaa wax dulmay marka qofka waxa dulmay laga cabanaya waa kuma aniga daalimo adiga ku dulmay adiga kan kala sii dulmay adiga aniga 2 jeer dulmay kana 5 jeer ku dulmay lama gaari karo marka ma aragtay lama gaari karo meesha la rabo in la gaaro marka walaal nuxurku waxa weeye Soomaalida macnaha cudurka haya hadaan soo ururiyo hal wax baa laga yaabaa inay cudurkooda waxa ugu weyn tahay Soomaalida hal wax wali waxaan isleeyahay wali may fahmin Soomaalida waxa kala duwan waxa la yiraahdaa issue-ga iyo actors-ka af Ingiriisi mawduuca la isku hayo iyo dadka is haya weey af Soomaaliya Soomaalidu inta badan wuxuu bay fiiriyay yaa is hayo horta niyo dood yaa u dhaxaysa between home yaa dood u dhaxaysa hebel iyo hebel anigu hebel baan la socdaa wali career-kooda waa Soomaalidu inta badan isma weydiin warniyo maxaa la isku hayaa issue-ga lama soo hadal qaado mawduuca topic-ga la isku hayo lama soo hadal qaado laakiin waxa la soo hadal qaadaa niyo ragays haya waayo waa hebel oo reerkayga iyo hebel oo reer hebel anigu hebel reerkayga la socdo laakiin qofka Soomaaliga inta badan isma weydiiyo niyo hebelka reerkiinu doodu aaminsan maxay tahay hebelka reerka kalena doodu aaminsan yahay maxay tahay mawduuca marka Soomaalida kuma wada hadasho waxaan isleeyahay ilaa mawduucan ka wada hadalno oo inuu isla nimaadno topic issues aan ka wada hadalno oo actors-ka aan iska ilowno halka Soomaalida aniga waa ila dheeriya adigu abwaan baa tahay gabayo badan baa tirisay waxyaabaha adiga ku gubay oo sida gaar ku saameeyay marka arrimaha Soomaaliya laga hadlayo maxay maxaa adiga ku goonay wixii gooni ma jiraan Abdullah laakiin waxa iska jira waxa la yiraahdo intellectual responsibility waa mas'uuliyad ay tahay qofku in uu dareemo oo damiirkiisu ay dareensiiso aniga hadii la yiraahdo maxaa ku gubay wax gaar ah aniga qof aniga maqani ma jiro laakiin hal arrin oo runtii aad u muhiim aniga agtayda ah baa jira ka muhiimka waxa weeyaan
soomaalidaynu maanta ku noolahay xaqiiqa ina hor taalla dalkeenii oo burbursan dowlado shisheeye oo inagu soo duulay khayraadkeenii oo la doonayay in la qaato diinteenii oo la doonayay in la bedelo dadnimadeenii oo la rabay in la dooriyo xeebaheenii oo dowlada ay duulimaad ku yihiin xuduudihii dalkeenni meel walba iska furan ummadeenii oo dayacan intaasoo xaqiiqa ina hor taalla xaqiiqada kale hor taalla waxa weeyaan dowladaha kuwa deriska iyo kuwa ku sii xiga oo doonaya xaaladda aynu ka jirnaa inay ka sii darta mooye inaanay ka soo horeyn waya taariikhda soomaaliya iyo etoobiya markaanu dib u raacno waa la ogyahay dhibaatooyinka ayaga soomaalida ee dhex maray waa taariikh colaad ku salaysan haddana waxaad moodaa in si kale loo dhigayo adigu taarikhda etoobiya soomaaliya maxaad ku macnayn kartaa Ethiopia ama Abyssinia waxa weeyaan hab ma waa maxaa la yidhaahdaa nidaam muddo dheer jiray wey wuxuu caan ku yahay tusaale taariikhda boqolkii sano ugu dambeysay haddaan fiirin markii Berlin uu heshiisku ka dhacayay Afrika la rabay lagu qaybsado 1884 dowladda Ingiriisku dan bay ka lahayd dhulka Soomaalida inay timaado waxay doonaysay ciidamadeeda Sanca Yaman dhulkan cadan dhulkan degan inay hilib u hesho meeshaasna inay si nabadgelyo ku joogi karto dinaha istiraatiijiga buu Ingiriisku Soomaaliya qayb kamid ah u goostay u degay Faransiisku maadaama uu tartan kula jiray Ingiriiska isaguna Djibouti buu degay waxaabuu Djibouti u degay waxaa kamid ah China Hindiya safarkiisaasi inuu u nabad galo oo si nabadgelyo u ruudkaasi u ahaado sidoo kale maadaama Ingiriisku uu Yaman dekadaheedii uu qabsaday cadan iyo dhulkaas inuu Faransiiskuna Djibouti qabsado uu dabadna dekada Djibouti ka dhiga dekad la loolami karta dekadaha Yaman soo dhaqaala uga sameeyo Ingiriiska ula tartan Talyaanigu koonfurta Soomaaliya u qabsada plantations in beera la sameeyo oo dabadeedna manpower la helo wax laga beero dan dhaqaalo isaguna ayuu koonfurta Soomaaliya Talyaaniguna uu soo degay dowladaha gumaysiga ee reer Yurubka waxa la socotay Ethiopia oo iyaduna shirkii Berlin ka qayb gashay oo kamid ahay dowladihii dhulka Soomaalida ee la qaybinay qaybta qaatay iyadoo hal ujeedo kaliya lahayd ujeedo gumaysi way dhul balaarsi ujeedo gumaysi oo maxay dhul balaarsi in Soomaalida la qaybsanaya iyaduna qayb ay gumaysato caloosheeda soo gasha ay ka hesho waxay raadinaysaa xeebta Banaadir waxay raadinaysaa xeebta Zaylac waxay raadinaysaa xeebta Berbera waxay raadinaysaa xeebaha Soomaaliya waxay raadinaysaa xeebaha Khartoum ee Suudaan inay qaarkood hesho casab iyo musawac iyo dhulkan markii dambe waa tiliqday waa la ogaaba xeebaha Djibouti raadinaysa waxa jira article caan ah oo uu qoray nin Soomaali ah oo la yiraahdo Professor Nuruddin Faarax Nuruddin waxa la yiraahdaa which way to the sea please fadlan ii sheeg jidka badda galaa la yiraahdaa 1987 meelahaas aan filay inuu ahaa wuxuu kaga sheekeynayaa taariikh dheer oo rabitaankii iyo damacii boqorrada Itoobiya kala dambeeyay ay ku doonayeen xeebaha Soomaalida inay ku qabsadaan xeebaha Soomaalida kaliya maaha hadday Eritrea heli karaan hadday maxaa la yiraahdaa Khartoum iyo Suudaan iyo dhulkan heli karaan xeeb doon biyo doon ay horta taariikhdaas ah saas daraadeed horta taariikhdaas meel taala waa boqolka sano ugu dambeeyay macna kama hadlaayo maxaa la loolankii ku salaysnaa diinta ma ka hadlay ee u dhaxeeyay maxaa la yiraahdaa Soomaalida muslimiinta ah iyo dadka Christianka ah ee Ethiopia hogaaminaya ma ka hadlay marka walaal taariikhda iniga Ethiopia inoo dhaxaysa waxa weeye Ethiopia boqortooyada Abyssinia oo doonaysa in dhulkan aynu degannahay iyo dhulkan aynu inagu Ilaahay inagu beeray iyo diinteena intaba inay ka takhalusto oo iyada dhulkan ay hoggaan ka ahaato iyo dad muslimiina oo Soomaaliya oo dhulkan degan oo doonaya damaca Ethiopia inay sortaagaan marka inaga xaaladda inaga Ethiopia inoo dhaxaysa markasta waa conflict waa dagaal waa xiisad baa inoo dhaxaysa markasta xabadu inaanay dhacahayn baa laga yaabaa laakiin marna xiriirka inoo dhacaya normalization maaha maxaa la yiraahdaa xiriir saaxiibtinimo maaha waa conflict waa xiisad waa taxadir uu qofka kale uu mid walba ka kale ka taxadirayo waya ayadoo sidaas ay tahay haddana siyaasiyiinta Soomaalidu waxay leeyihiin Ethiopia maaha Ethiopiyadii hore waa Ethiopia cusub oo ogol wax wada lahaansho deris wanaag isxaq dhowr iyo
maaragtay ka shaqaynta isweydaarsiga waxyaabaha wanaagsan maxaad ka leedahay arrinkaa adigu Ethiopia intaan hadda anigu fahamkayga uu yahay istaraatiijiyadeedu waxa weeyaan waxa la yiraahdaa istaraatiijiyadda labada biyood hadda siyaasadooda maartay arrimaha dibadda saasay inta badan ku salaysan tahay waxa weeyaan biyaha macaan ee webiga Nile iyo biyaha badda gaar ahaan badda cas hadii la heli karo Ethiopia marka waxay ku shaqaynaysaa siyaasad istaraatiiji oo ah inay biyaha macaan ee webiga Nile ay xidho oo biyo xidheen iyo dhaamam u samaysato biyaha dhanaan ee gaar ahaan badda casna ay gaadho oo maraakiib dagaal iyo ciidamo maxaa la yiraahdaa badeed oo naval bases ay ku yeelato oo ay deganaato iyada foreign policy-geedu sidaas ku salaysan yahay siyaasadda arrimaha dibadda Ethiopia waa sidaas inaga maxay ku salaysan tahay siyaasadda ninka Soomaaliga ee siyaasiga ku ahad sheegtay ee la xiriirka anaga Ethiopia noo dhaxeeya wuu isbedelay Ethiopia siyaasadda arrimaha dibadda wataas waana clear waa very clear maxay ku salaysan tahay iyaga tooda maxay xaqiijinayaan iyagu markay leeyihiin xiriirka anaga Ethiopia noo dhaxeeya wuu hagaag maxay rabaan inay xaqiijiyaan maxay rabaan inay achieve gareeyaan dhinacooda anigu waxba iima muuqdaan ay achieve gareyn karaan Soomaaliya waa la qaybiyay ilaa 6-7 maamul baa laga sameeyay welina waxa lagu dadaalayaa in la sii qaybiyo maamul kasto Soomaaliya laga sameeyaa intooda badan Ethiopia daris bay leeyahay ma dhamaantood baa andho Ethiopia xuduud dhinaca dhulka ah bay leeyihiin ciidamada Ethiopia siday rabaan u dhaxmari doona maxaa la xeeb bay leeyahay maamul kasto Soomaaliya laga sameeyay wuxuu leeyahay marin dhinaca badda oo Ethiopia badda ku xidhi kara laga soo bilaabo Kismaayo ilaa iyo meesha ugu dambaysa Ethiopia meeshay doontay badda access gareyn kartaa ma fahamtay ciidamada Ethiopiana baa bases kula inta ugu badan leh dhulka Soomaaliya ee hadda aynu sheegayno intooda kale intelligence-kooda iyo diplomacy-intooda iyo maxaa la yiraahdaa wuxuudaasaa joogay waraaqahooda iyo waxaas iima muuqata markaa balance of power oo nin diplomacy oo Soomaaliya oo siyaasi u dhahi karo way isbedeshay aragtidii siyaasadeed anaga Ethiopia noo dhaxaysay sidaas daraadeed maxaa la yiraahdaa waanu kala faa'iideysanina haddaanu nahay labada dhinac aniga qof aan ma ii muuqato aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa abwaan nageeye cali khaliif waxa uu waramayay idaacadda islaamiga alfurqaan aad baad u mahadsantahay abwaan aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi adiga alfurqaan waa mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته